soomaayihi gadeedii goranyoy gabal ku dhac soo godgoda dhaqanta duud buuran sidii diin qaba ku jira yaa waayo waxa gabal u dhacood sheegayso 2018 sanadkan dhamaaday wuxuu noqday baa liir gabal dhici maamul goboleedyada war maamul goboleedyada waa jiraan adaan waxba kala ogeyn waa gabal dhici golihii iskaashiga maamul goboleedyada ariya soo gabalkiisu u dhacay hadeeran baramneen xaaf gudoomiye uga dhignay waa qaraabaheynadi xaafayba eedeen wareega awowgii la gubiye golaha iskaashiga maamul goboleedyada waxa lagu sameeyay ama lagu dhisay Jubbaland waxaana martigeliyay shirkooda al-Sayyid Sheikh Ahmed Madoobe gabalkoodii yaa dhacay waa wareeydiin soo dhiibtay nabad iyo nolol nagala taga sheekada hadeerna waxa dib loogu soo cusboonaysiinayaa dhuusa mareeb waxaana martigelinaya al-Sayyid Sheikh Maxamed Shaakir war nin gabal u dhaco iyo nin waa u bariyaba Soomaalidu waa isku dan waxaana la yiri wadamada adduunka iyo bulshada dana wadaagaysa ummadiba waxbay weeshataa waardiyeeyana wadar baanu nahay ruux kasta waajib leeyahay marka waxaan ku talin lahaa dhinac kasta iyo qayb kasta inay waajibkeeda ka adkaato oofiso warkaada waxaan u fahmay daacish al-shabaab waajibkooda ha gutaan dadka aad hawlaayeen horta shabaab iyo daacish waajibkooda xasuuqa inay fushaayaan waaba hubaahe dawladda iyo shacabka ya waajibkooda u gudaahe ardagonka kana dawladda waajibta inoo gudaas banaanka yaala sababtoo ay qara hoobadhiye waana ambaaraynayna waan fashilinay yahla teeganyin shacabkana waa bagara hadii waajibka gudayaan ayaa sidoo waajibsho gaalka la dilaayo baayaydu waa kada ku naqiine sidee baan u galaa sidee loo galaya gafuurkiisa baleeg annaga garanayna hal laga daayo gumaadka almiina hadaan laga day karin alla qafiifiyo warnimayaanu waxaan dhihi lahaa qarannimo abaadaan rabnaa inaan aloosnaaye qof kastoo isbaaro u dhigtana waan abhinaynaaye dadkan waa ul iyo diir haddaad kala eryaysaane awrkacsigan qabiiliga ah iyo oohintiya wayda iska daaya lama arag waxaad ka istafiideen qarannimo abaadaan rabnaa inaan aroosno xaad aroosee qarannimadu dadkaanay ka dhaxaysaahe qoladeed aheedeen idinku war qaranku ummaduu ka dhaxeeyaaye digtaan iyo damtaan iyo balaayadan hanala ka daayo dada bariisyo aragga darta fadoo haytamaan way koo weelna aryaadhaha anigu war haddii layska yeelaa waxaan dhihi lahay mudaadaadkan la soo diile ha laga daayo damdamtan mudaadaadkan la soo diile ha laga daayo damdamtan haye waryaaraheen maanta gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu yiri 3 qof oo maxkamadaha intay ku qanci weysay shabaab u dacwootay xabsigaanu soo dhignay cid dambe u dacwootana raadkaasay qaadayaan nimayow cadaalad shabaab laga doonay cimriga go'an la yiraahdo nimayow waxaan la yaabanahay xoogga lagu soo xiraya dadka shabaab u dacwooday ma maxkamadda shabaabka lafteeda lagu soo xiro war kuba ha yaraade maxkamadda shabaab xabsiga dhex ma qaado ahey miskiina miskala fuulan leh way taas waxaa la yiraa cudurka daawey jeermiska ka dhalahayana ka leexleexo warnaa waxaan la yaabay dadka guriga dhisanaya ma daalaan shabaabna qarax kama daalaan war dumiya dhalintii dhisilaad wali may dhimane adeer shabaab waxay dumiyaan hadii laga tagi lahaa magaaladu cid lay noqon lahayd warnamiyo aniga warsiin haaya bayda wajanaay hata ka hor sheemadar madgaab aliyow yadlanka usoo sajuudka jira taraawihina tukudo habad madaga garafku ku sii usiina geeka lanki dadil walde wala ridaayinka dilana walduge usadagmadilne geeka waldiri usiina meeli banaanay daagaysan goradaasan buurka baalisa garaf lagu ku siiyay fifaniini warmadii saaqow maddheerow iyo madgaabow waaba isla dhashaana maxay isku dileen aryaa dhirirkana leesuma ogola gaabidana leesuma ogola wanimayo anigu waxaan la yaabanahay beelaha ku dagaalamaya hiiraan maxaa sagteeda madaxweynaha hirshabeelle weli kama uusan hadal madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdullaahi cosolona isagoo ka qiiraysan ayuu yidhi dadkan ku dagaalamaya walaalaha waa in laga hortagaa maamulka hirshabeellena mas-uuliyadda saaran tahay buu yidhi marka nimayo waxaan la yaabanahay waana dagaalku inuu sii waara miyuu doonayaa war Soomaali ma taqaanide hadba kii kursiga ka maqan baa qiiraysan dagaalka ka dhacay ka xandaale meesha la yiraahdo ee ku taalo xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee gobolka Galgaduud ka tirsan beelihii dagaalamaya waxay dhaheen Itoobiyaan ayaa dagaal ku jira waa soo qabanana way dhaheen marka anigu waxaan la yaabanahay goorma Itoobiyaan Soomaali ka mid noqday mise waa la isku been abuuranayaa aryaadaha anigu waxaan
la yaabanahay dadka kaxarku kor dirida kaxarba uusan ahayn kii hadduu ku mudo xanuunka badnaay anigu waxaan kaloo la yaabanahay Ethiopian baa dagaalka ku jira kuwa dhahaya war Soomaalida haday ayadii isdilayso Ethiopian xaguu ku daynaya war dagaalka gaxandhaada intuu socday live lagu jiray war qoryaha liifkooda kaamira iyo internet ba ugu xiran yihiin boowe war idin sheegay doorashada Puntland waqtigeeda aan dhacaysa shaqaalaha nabad iyo nolol iyo kuwa dawladdan u shaqeeyana inta doorashadu ka dhacayso ma iman karaan agteena boowe waxaan ka digaynaa inaan cod la siinaynin anigu waxaan la yaabanahay musharaxiinta Puntland 30 bay gaarayaan xildhibaanada Puntland waa 60 qofkiiba laba cod ku aadaysa marka ninkay madaxweyne noqonaya war galmudug laba madaxweyne leedahay inay 30 madaxweyne yeeshaan yaa ka reebay warnamiyo wali warsiin haaya maroodo ban habayi balanbaal magarya waleeri madaxweynaha u subanaay lafta gareen geeka mayba booqashadinku horeyti ka saday gobolka Leey Hudur reer hiraatun dayuurada koray masluti u sheegay ka bahi war diyaarin seerna dhulka arku dhaxaysa buu koray aryaadaha baarlamaanka bariga waa furmay war awal yaa xirtay areenaga shib dhaqan waji cadaada leh warkiiga dhageyso gudoomiyahana waa qudbeey wuxuu yiri khilaaf wixii jira waa la xaliyay casharna waa ka baranay oo yiri waa ku saxan yahay inuu casharkaas qaato qof ay khayraas qabtaan inuu san sii raagan waa looga may artay ay qadiijo libeel ama ma hojroona qayru waarti warayaantan Suudaan waxa ka socday mudaharaadyo rooti qaaliyoobay ka bilowday maalmihii dambana siyaasadda isu bedelay maalmihii ka sii dambeeyayna madaxweynuhu hadda oo isu bedelay marka xanta hadda sabaxaysa waxay leeyihiin albashir waa taasiilahu yiri kursiga ra'iisul wasaarihi isaga uu afgambiyay Saadiq al-Mahdi ayaa rabaa la yiri ariya rooti qaalooba hadii madaxweyne u dhacaayo ilaahu an muufado nagu qaaloobi maysiin warsaday umur albashir wiina waa badrootay leeyndiyay war shacabka Suudaan waxaan la yaabay rooti ay u banaabaxayaan anagana mooshin u banaabaxayna wariyaa dad la rabo iyaguna israbaa rooti u banaabaxa inagu dhiigan ka banaabaxeelaada waryaara dalkeena inaan badbaadano waajib ay nagu tahay muqaddis war guriyaagi daraaga dudumi inoo la dhisay muqaddasu aryaadisaayo horta wariyaa dastuurku waa qabiyo ninkii dumiyaa afuundi dhawaysan yamay naga taga dhagaha barkade